iyadoo wili taagan tahay xiisada colaadeed ee u dhaxaysa maamulada Hargeysa iyo Garowe ayaa maamulka Garowe wuxuu ku dhawaaqay cunaqabatayn iyo cadaadis hor loo saarayo maamulka Somaliland. qoraal ka soo baxay guddiga difaaca maamulka Puntland ayaa lagu shaaciyay in la joojiyay isu socodka gaadiidka iskaga kala goosha Somaliland iyo maamulka Puntland gaar ahaan magaalooyinka isku xidha labada dhinac ee Garowe iyo Laascaanood. qoraalka ka soo baxay guddigani ayaa waxa si gaar ah loogu xusay in gawaarida shidaalka qaada laga mamnuucay inay maraan goobaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka Puntland iyo ciidamada Somaliland. qoraalkan oo ay ku saxiixan yihiin guddiga difaaca maamulka Puntland ayaa waxa uu qornaa ku dhammaan shacab weynaha dawladda Puntland, ku dhammaan laamaha amniga dawladda Puntland, ku taliska ciidamada booliska Puntland, ujeedo amarra ka soo baxay guddiga difaaca maamulka Puntland. waxaa la farayaa taliska ciidamada booliska ee dawlad goboleedka Puntland in baraha kantaroolada aysan soo dhaafi karin dhammaan gaadiidka shidaalka ee ka imaanaya dhinaca Garowe kuna socda dhinaca maamulka Somaliland, inaan shacbigu la aadi karin gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn aagaga goobaha difaaca ee isku hor fadhiyaan labada ciidan, in la baaro gaadiidka shacabka dhammaan gaar ahaan baabuurta yaryar kuwaasi oo ka imaanaya wadada Laascaanood iyo kuwa ka imaanaya dhanka Garowe, in dadka shacabka aysan dhex geli karin deegaanka dagaalku ka socdo lana celiyo dhammaantood, inaan dadka shacabka ay dhex geli karin kuna dhex qayili karin dhammaan aagaga deegaanka Tukaraq sida Buura Wadal, Hadwanaag, Godqaboobe iyo deegaanada la midka. warqadani ayaa waxa ku saxiixan gudoomiyaha guddiga difaaca dawlad goboleedka Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad, wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Puntland. lama oga sababta keentay amarkani ay soo saareen maamulka Puntland ee ka mamnuucaya inay gudbaan gawaarida sida shidaalka iyo isu socodka shacabka. dhinaca Somaliland ayaan iyadu wax waraa ka soo saareen ilaa iyo hadda xanimaada ay soo rogtay maamulka Puntland. dadka u dhuundaleela arrimaha deegaankaasi ayaa ku macneeyay amarkani ka soo baxay guddiga difaaca maamulka Puntland inay tahay saansaan colaadeed iyo abaabul ka socda dhinaca Puntland, waxaana la saadaalinayaa in maalmaha soo socda ay maamulka Puntland qaadi doonaan weerar rogaal celisa oo deegaanada ay sheeganayaan ay dib ugu soo celin doonaan maamulkooda. labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa ku dagaalamay Tukaraq, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare nafeed iyo mid gaadiid. labada dhinacna waxay kala sheeganayaan guulo walow aysan jirin cid madax bannaan oo si rasmi ah u soo xaqiijisa sheegashada labada dhinac. maamulka Somaliland ayaa isagu ku doodaya inuu sugayo xuduudaha Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somaliland, xagga dhinaca Puntland ay ku doodayaan in maamulka Somaliland uu gardarro ku haysto dhul ka tirsan maamulka Puntland. marka laga yimaado eedeymaha labada dhinac ay isku marinayaan saxaafadda iyo dirirta foolka ah ee dhex martay, waxaa jira baaqiyo nabadeed oo ay wadaan odayaasha iyo waxgaradka. sidoo kale waxaa baaq nabadeed dirtay xukuumadda federaalka Soomaaliya, inkastoo maamulka Somaliland uu madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ku eedeeyay inuu qayb ka yahay duulaanka ay sheegeen inay ku soo qaadeen maamulka Puntland. lama oga xanimaadan ay soo rogtay maamulka Puntland saamaynta uu ku yeelan doono isu socodka labada shacab oo ah laba shacab oo wada dhashay sinana aan u kala maarmin.